nin shabaab ay u soo direen lacagta karfantiisa. ninka halkee ayay ku heleen? maxay ahayd sababta lacagta karfanta loogu soo diray? hadda halkee ayuu ku sugan yahay ninka? isaga iyo kooxda shabaabna maxaa dhaxmaray? inta muuqaalka ayaa ku daawan doontaa koor fadlan muuqaalka laagdhe si dad badan u gaaro folowna na soo dhisi maalin waliba aad noola socoto maasanid. mayre maxamed nuur oo ka mid ah xaqudirarka abaabulan ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in kooxda shabaab ay u soo dirtay lacag uu karfan ku gato. al-shabaab lacagan karfan ku iibsado ay soo direen, aniguna kama cabsan waxaan dhahay soo badiya aan sonkor ku gatay, ayuu yiri mayre maxamed nuur. ninkan ayaa sheegay in cagjugleen xun uu kala kulmay kooxda, isla markaana deegaankii uu ku noolaa ay aqab duco ay maamuliyeen muddo 16 sano ah, iyagoona ugu dambeyn iska xoreeyeen. anigii al-shabaabna ma wada qaado dhulkan, wax kastoo aan haystay way iga dhaceen. reerkii ayaan kala baxsan waayay 16 sano kadib, maanta waxaan ku wareeynayaa duurka, ayuu yiri odaygan oo warbaahintu kula hadlayay duleedka aadan yabal. wuxuu sheegay markasta ay ku weerarayeen meeshii loogu sheego inay ku sugan tahay kooxdu, meel kastoo ay ku cararaan laguma hari doona, ayuu sii raaciyay aabahan. dhacdooyin yaab leh oo dadka reer miyiga ay kala kulmeen kooxda shabaab oo hadda wajahaya kacdoon xooggan ayaa laga soo tabinayaa deegaanaday u badan yihiin sida Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. daawade wadankaadii maxay kula tahay sababtay shabaab shacabka lacag karfan ay ugu dirayaan? mana kula tahay cagjugleenta kooxdan inay sii socon doonto? aragtidaada ku aadanna qaybta hoose nugula wadaag siina sheergaray maasanid. ogeysiis muhiim ah. cudurka baabasiirka waa cudur halis ah oo keeni kara in aad weyso dareemaha qaar ka mid ah jirkaaga. waxa uu ku bilowdaa caloosha oo fariisata kadibna dibiryo joogto ah iyo in aad muddo ka maqnaato suuliga, taas oo keeni karta in ay adkaato saxarada si adagna ay ku soo marto dhanka hoose, kadibna halkaasi uu ku sameysmo nabar keeni kara dhiig. waad iska daaweyn kartaa adigoo la tashanayo dhakhtar aad ugu xeel dheer, kaasi oo ka howlgala isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Siiriyaan, isagoo isticmaalaya daawo iyo qalab casri ah oo loogu talagalay baabasiirka. isbitaalka wuxuu ku yaalaa inta u dhaxaysa Tarabuunka iyo Digfeer, ama kala soo xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda. mahadsanid.